wararka naga soo gaadhaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in goor dhaweyd oo fiidkii uu qarax ka dhacay magaaladaasi. wariyaha nooga soo warrama magaalada Muqdisho Cabbaas Xuseen Muuse ayaa khadka si toos ah uga jira magaalada Muqdisho. Cabbaas ma maqashaa? cabdirashiid wanaagsan bal waxaad faahfaahin naga siisaa qaraxan iyo halka uu ka dhacay ee wararku sheegayaan in goor dhaweyd oo fiidkii uu ka dhacay magaalada Muqdisho. waa mahadsan tahay caawa xilligii salaada maqrib laga soo baxay kadib ayaa wadada wadaagta ee magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay qarax miinadaasi ayaa waxa ay ka qaraxday xilli gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda ee degmada wadajir uu marayay isgoyska wadaagta oo ah meel u dhow xarunta xalane ee amisom ee laboorka Muqdisho xilliga asaga halkaas uu marayay qaraxa ku soo beegmay waxaana burbur uu gaaray gaariga gudoomiyaha inkastoo gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka la ii sheegay in wax khasaara aysan ka soo gaarin qaraxaasi waxaa qadka telefoonka goorweed aan kula hadlay afayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane waxaana uu ii sheegay in gudoomiyuhu bad qabo waa gudoomiye ku-xigeenka dhaawac fududna uu jiro oo gaaray mid kamid ah ilaalada gudoomiyaha laakiin waxa uu tilmaamay in ujeedka qaraxaasi uu ahaa mid la doonayo in gudoomiye ku-xigeenka degmadaasi lagu qaarijiyo balse uu ka badbaaday gaarigiisana burbur uu gaaray mid kamid ah ilaaladiisana dhaawac uu soo gaaray dhaawiciisana halkaasi laga qaaday oo hadda lagu dadibayo ma jira Cabbaasow qaraxaasi ilaa hadda cid sheegatay ilaa iyo hadda maadaama qaraxa goor dhaweyd uu dhacay faahfaahinna ka baxsan intaasi ma jiro inkastoo qaraxyada inta badan magaalada ka dhaca al-shabaab ay sheegtaan marka hadda baraha al-shabaab ay wax ku qoraan la eego ilaa hadda laguma soo qorin balse inta badan qaraxyada magaalada ka dhaca mas'uuliyadooda waxaa sheegtay xarakada al-shabaab waxaan doonayaa bal maalmihii u dambeeyay waxaa ku soo badanayay magaalada Muqdisho qaraxyo isxiga oo kan caawa ka dhacay magaalada ugu dambeeyay qaraxyadani waxay ku soo beegmayaan xilli ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay in ay gacanta ku dhigayso ammaanka Muqdisho oo ay wax badan ka qabanayso khilaaf badan ayaa isaguna jira oo dawladda dhexdeeda arrimaha laftoodu miyaanay saameyn ku lahayn waa sidaas aan sheegtay arrimaha la xiriira mooshinka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari laga keenay ayaa inta badan waxaa la sheegayaa kadib mooshinkaasi iyo arrimihii ammaanka in qalaaso badan uu dhashay oo marka tan markii mooshinkaasi uu soo ifbaxay waxaa aad u kordhay magaalada qaraxyada sidoo kale dilalka ciidamada ammaankuna howlgallada ay sameynayaan howlgallo fara badan ay jiro oo ay sameynayaan laakiin weli waxaa moodaa in mooshinkan iyo qaraxyada iyo falalka amnigaraba ay isku soo aadayaan xilli goor dhaweyd ah waxaa qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo aan la hadlay ay sheegeen in berrito kulanka baarlamaanka ay yeelanayaan xildhibaanada golaha shacabka laga baqdan qabo in marka uu qalaaso uu yimaado maadaama hadda xildhibaanadu ay sheegeen in laba fariin oo labada gudoomiye baarlamaanka ka kala socota loo diray taasoo ku aadan in berri laga hadlayo arrinta gudoomiye Jawaari halka Jawaari qolada taageersanna ay xildhibaanada u direen in kulanka berri uu jiro lagana hadlayo arrinta balad xaawo sidii tiisabdi oo kale ayaa hadda laga cabsi qabaa in maalinta berri ay dhacdo wadooyinka qaar ee magaalada ayaa la xiray oo ciidamada ammaanku ay adkeeyeen gaar ahaan xarunta baarlamaanka Soomaaliya waxaan arrintan oo dhan waxay imaanaysaa xilli gudoomiyuhu waxa uu leeyahay kulankaasi hadduu qabsoomo waxa laga cabsi qabaa in khasaare amba dhibaato kale ay meeshaasi ka dhacdo waa sidaas waxayna u badan tahay hadda kulanka hadiisan arrin kale ama go'aan kale uusan madaxda sare ka soo bixin in kulankaasi beri uu dhacay maadaama xildhibaanadu ay gaartay fariimihii labadii fariin ee markaa ku aadanayd in kulanka beri uu jiro oo labada dhinacba dhinaca taageersan gudoomiye Jawaari waxa ay u direen xildhibaanada fariimo oo la xiriira in waa gudoomiye ku-xigeenka aan ilaahdo qoladan gudoonka baarlamaanka ee Jawaari waxay xildhibaanada u direen in berri kulan uu jiro arrinta balad xaawo laga hadlayo halka gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ee koowaadna isna xildhibaanada u diray in berri kulan uu jiro lagana hadlayo mooshinka marka labada ajenda way isku soo horjeedaan ee kulanka berri waxaan kaloo doonayaa Cabbaas inta aynaan khadka si toos ah aynaan uga bixin bal inaan wax ka weydiiyo waxaa la sheegayaa in shil gaari uu ka dhacay magaalada Muqdisho ka laftiisa maxaad faahfaahin nooga haysaa waa sidaas ay sheegtay shilkaasi waxa uu ka dhacay isgoyska Galaxy wadada waddanka ee magaalada Muqdisho waxaana uu ahaa gaari nooca xamuulka
oo magaalada halkaasi marayay ayaa shilkaasi uu ka dhashay. ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey waxaa la ii sheegay inay ku dhinteen 3 qofood oo 2 ka mid ah ay haween yihiin oo goobta markaasi ku geeriyooday. waxaa sidoo kale jira dad kale oo meesha laga qaaday. dadka dhintay waxay saarnaayeen mootooyinka nooca loo yaqaano bajaajka oo halkaasi maraysay. goobjoogayaashu waxay sheegayaan in mashquulka wadada ka jiray iyo gaariga oo xoolii socda ay sababtay shilkaasi uu dhasho. gaariga nooca candabeylaha la yidhaahdo oo soomaalida u taqaano ayaana rogmaday oo markaa kadib xamuulkii iyo wixii uu waday gawaarida kale meesha taalay uu saameeyey. aad ayaad u mahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa waryaheega nooga soo warrama magaalada muqdisho Cabaas Xuseen Muuse, waxaana uu faahfaahin naga siinayay qarax la sheegay goor dhaweyd inuu ka dhacay magaalada muqdisho.